السلام عليكم ورحمة الله. صاحبي السؤال هذا هل كان وسام جروبس أنا وحنا صاحبكنا صاحبي المقال كمان وحنا واحد لنا سيدي لوجو هرتجا إن فيسبوك على جاحرو أم إن فيسبوك على جاسر ريمبرين صاحبي أيانتن وحاس عتي أمس برا بالشدة مركز كده عايزي إن أكون بدن الحرية ولا ساري ريمبرين حتى بوا محر ريمبرين سمحوا متقنا الشيء إن هدي أن مانتي مقال كان دعوته حسب كفاية دي صاحبي ريمبرين وحيان وإن فيسبوك laga bixiyo report kaas oo in la yiraahdo qofkan akoonkiisa ama uu karintay salaagdeed Facebook yani waa in xiraan soo marka inta akoonkaaga akoona badan oo feegal yani oo dad u shaqeynaya laga xiray saaxiibyaal marka muuqaalkan maanta waxaan ku bari doonaa sida la iskaga xiro remember-kaasi uu qofku ka gudbinayo ciwaanada dad badan waxa arkay asxaaba oo isku boodaya markaasi ciwaanadooda intay dul yimaadeen ka saaray remembering kaas oo ay oranaya ninkan ciwaankiisa uu ka dhintay qofkii nool haddaba saaxiibyaal maanta waxaan baran doonaa sida muuqaalkaas amse sida looga hortago khiyaanadaasi haddaba muuqaalkan aad badan saaxiibyaal inta ayna muuqaalka gudaha goyn fadlan videoga like saar si asxaab badan u gaaro sidoo kale haddii channel ku cusub subscribe oo ay tahay ku wareysa soo baqto subscribe saar sidoo kale gambalka furo teed kale saaxiibyaal wixii ra'yiga waad igu soo gudbi kartaa qaybta commentiga sidoo kale haddii aad jeclahay muuqaalada inaan ka soo hadlo markaasi ku saabsan Facebook oo commentiga ayaad igu wadaagi kartaa haddaba saaxiibyaal muuqaalkan gudaha galo let's go inagay Facebook dhufo Facebook sidaan markuu kugu soo baxo waxaad ka dooranaysaa halkaas geeska ama qaybta sare qaybta ugu sareysa marka ku dhufatid wuxuu ku keeni doonaa halkan markuu keeno waxa ku dhufanaysaa setting and privacy ku dhufo kadib markii aad ku dhufato setting and privacy saaxiibyaal wuxuu keeni doonaa halkan markuu keeno waxaad ka dooranaysaa setting ayaa dooranaysaa setting markuu keeno saaxiibyaal hoos ayaad wadaysaa kadibna waxaad ka dooranaysaa halka ay ku qoran tahay profile and tagging ayaa dooranaysaa halkan marka aad ku dhufato profile and tagging halkan ay ku keeni doonaa saaxiibyaal haddaba qaybta ugu muhiimsan ee aan xiri doono waxyaan halka ugu sareysa ee ah who can post on your profile yani muhiimada waxyaan profile-kaaga ayaa wax lagu taageeray tagging-kaas ayaan xiri doonaa haddaan xirno tagging-kaas yani ama tagging-kaas waxaan lagu taageerinayo haddaan xirno maanta waxaan awoodnaa inaan ka hortagno remembering-ka ama akoonada laga xirayo haddaba muuqaalkan halkaas kaliya Facebook ka saxdo cidna kuma istaagay karto cidna akoonkaaga ma xiri karto haddaba saaxiibyaal halkaas ayaa ku dhufanaya hadda waxa aragtaa inuu halkaas u saaran yahay friends macnaheedu in ay asxaabtu ay ku soo post gareey karaan ay wax soo dhigi karaan remembering ay saari karaan laakiin waxa dooranaysa halka ku qoran tahay only me marka doorato macnaheedu waxaan aniga kaliya ayaa wax ku soo post gareey kara waxna taageeran kara soo marka saaxiibyaal halkaas kaliya ayaa dooranaysaa sidaas ayuu ciwaankaaga ugu fiicnanayaa oo markaasi qof remember-kaas kaama saari karayo si kasta oo markaasi uu joogo remembering kaama saari kara ama report-ka Facebook ah in ciwaankan dhintay haddaba saaxiibyaal waan iskaga laabanaya halkaas ayaa saaranaysaa awal wuxuu saarnaa friends haddana wax saaranaysaa only me waan iskaga baxay markaasi haddaba saaxiibyaal sidaas ayaad ku xalisan kartaa Facebook remembers aad uga hortagi kartaa ama Facebook in laga saaro remembering adigoo nool in la yiraahdo ninkan yani uu dhintay markaasi report beena laga gudbiyo ama fake ah haddaba saaxiibyaal sidaas ayaad uga hortagi kartaa haddii aad jeclahay inaan ka soo hadlo muuqaalo markaas ku saabsan Facebook ama sira Facebook ama se waxayba markaas Facebook aad ka rabtay ama account la jabsanayo ama account yani hawada laga saarayo saaxiibyaal muuqaalada soo ayaan wax doonaa wixii ra'yiga markaas waxaad isu gudbaa qaybta commentiga haddii aad ku cusub channelkan subscribe saar haddii aad kamid asxaabta hor joogtaan muuqaalkan like saar sidoo kale gambalelka hilmi inaan furtaan saaxiibyaal waxaan nabala muuqaalka kale ee asbuuca wassalaamu calaykum